السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaanu dul joognaa caawa oo aanu soo booqannay buurtii uu quraanku ku soo degay taasoo la yiraahdo qaarul xira. hadda saa u jeedaan waxaanu saaranaa buurta dusheedii, halkaasna waa xaramkii oo kacbada ay ku taalay oo halkaa nooga muuqda. insha Allah biidnillaahi tacaala barnaamijkii waxyiga iyo suu soo degay oo dhammaystiran insha Allah ayaanu idin faahfaahin doonaa. la socosho wacan insha Allah. إن شاء الله بإذن الله تعالى قارو الحرة وحلو مرة لوقا كان لوق آدو عريريا مركز صباح إن شاء الله بإذن الله وأوجد بيننا وحنا سكودين هنا إنه إن شاء الله أي نمرنا مركز تعبا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه نمرنا أي سكودين هنا طبعا ولي واسيس عنا ولي ماشي وقرآن كسر دقي ولي ما إننا قارن صوصعه صوصعه walaalayaal meeshaan hadda aan ku suganahay ama godkaan hadda u jeedaan waa god waxa weeye magaciisa la yiraahdo qaarul xira ayaa la yiraahdaa. rasuulku sallallahu alayhi wasallam intuusan nabi noqon ka hor ayuu meeshatan iska imaan jiray isaga oo ka fakaraya ilaahay samadan iyo dhulkaan khalqay iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala sida uu koonkaan u khalqay isaga oo ka fakarsan habeenada ka mid ah oo ay tahay bil ramadaan ayaa waxa uu yimi halakan isagoo jooga. طبعا nabigu markuu halkan imaan jiray muddo ayuu iskaga dhex jiray dhowr maalmood ayuu iska joogi jiray raashinkiisa iyo sharaabkiisana hore ay u soo qaadan jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo halkan iska jooga oo iska cibaadeysanaya ayaa waxa uu yimi malaku jibriil ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu nabiga sallallahu alayhi wasallam oo u soo diray. markaas jibriil waxa uu ku yiri nabiga sallallahu wa sallam alayhi markuu u yimi ayuu wuxuu jibriil nabiga ku yiri iqra ayuu ku yiri. markaas ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri akhi buu ku yiri walaalkayow ma ana biqaarin ya akhi buu ku yiri waxna ma akhriyo waxna ma qoro. markaas ku yiri mar labaad ayuu wuxuu ku yiri iqra waad akhrinaysaa akhri ayuu ku yiri. markaas wuxuu ku yiri ma ana biqaarin ya akhi. markaas ku yiri hadana iqra wa akhrinaysaa akhri. markaas ayuu waxa weeye u akhriyay jibriil oo wuxuu ku yiri waxa tiraahdaa iqra bismi rabbika alladhi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أيوك رسولك صلى الله عليه وسلم. مركز رسولك كدب يري أو حفظي marka ay arintaas dhamaatay kadib ayuu nabigu isagoo baqsan oo argagaxsan oo gariiraya ayuu buuratan ka degay. kadibna waxa uu tagay xaaskiisa khadiija ayuu u tagay ilaahay raaliha ka noqday isagoo wuxuu leeyahay idaboola isagoo leh oo baqsan ayuu gurigiisa tagay. markaasay khadiija ilaahay raaliha ka noqday nabiga ay dejisay oo tartiib ula hadashay oo waxa weeye markii ay baqdintu ka baaday kadib waxoogaa degayna waxa ay ku tiri ii waran maxaad soo aragtay. rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay wuxuu la soo kulmay iyo wixii uu arkay iyo wixii uu maqlay ayuu khadiija u sheegay. markaas khadiija ilaahay raaliha ka noqday waxa ay ku tiri walaalkayna adeerkayow waxaan kuugu bishaareynayaa oo ilaahay kaaga rajeynayaa inaad noqonaysid nabigii ummadda tan inaad noqonaysid ayaan waxa weeye ayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaaga rajeynayaa. waa calaamado cadaynaya inaad nabi ummadda tan u noqonaysid qof caqli badan oo raaliya oo naxariis badan oo mar kastaba xikmad leh ayay ahayd khadiija ilaahay ha ka raali noqdee. sidaas ayaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu quraanka ku soo dejiyay maantana adduunka oo dhan waxa weeye quraankaas aynu wada haysanno meeshii uu ka bilowday oo waxay uu ku soo degay waa halakan ama waa qaarul xira oo meeshaan hadda aan ku suganahay ah. marka Allah subxaanahu wa ta'ala quraankiisa waxa idin ka codsan inaan la dayicin. rasuulku markuu quraan ku soo degay dabcan 40 jir ayuu ahaa rasuulku sallallahu wa sallam alayhi. إن شاء الله بإذن الله تعالى إلهي وحن قبرينا قف كست أو مسلنا أو كتابك إلهي حفظية أو قرآنك إلهي حفظية إنه إلهي وقدق قرآنك كيو شفع قادلها إنه إلهي سبحانه وتعالى وقدق لها قرآنك كيو وحوي جنة وقد بلها ودرجة وقصرية وكفول لها أيان الله وقرجينها سبحانه وتعالى قف كست أو فيديو كان ولا ليس كلا
usii sheer gareeya oo muslimiinta gaarsiiya oo tusa meeshii waxay uu ku soo degayna ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu xaafid alqur'aan ka dhigo oo ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo khayrka iyo dacwada fidinteeda ayaan alla subxaanahu wa tacaala uga rajaynaya dhammaantiinna waxaan idinka codsanaya inayd qur-aanka ilaahay dayicin oo qur-aanka ilaahay la akhriyo oo maalin ilaahay keeno la isku dayo inaad xataa waxa weeye dhowr aayadood aad kalaamka ilaahay walaalayaal ka akhridaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar iyo xasanad aan la soo koobi karin ha idinka siiyo inta ay daawanayseen fideogaanna usii sheergara walaalahaaga kaloo muslimiinta ah ilaahayna innagii kulligeenba haynoo ka dhigo sadaqa jaariya cid kasta oo qisadan waxyiga ah waxa weeye ee barnaamijkeenna kan ku daawata waxaana weeye khayr baa idin rajaynayaa sidaas iyo assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.